Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba si weliba oo muuqaalkayga idiin soo gaaraya. Fadlan haddaa ku cusub tahay YouTube channelkayga, subscribe dheh, like, share, comment, fura gambaleelka si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena. Videoga maanta waxaa uga hadli doonaa fanaan bulshada dhexdeeda sharaf iyo sumcad ku leh. Fanaankaas oo ah Maxamed Qadar Ibraahim Keyow oo haatan ku xiran dalka Itoobiya, walow aanan la shaacinin sababta loo xiray iyo waxyaabaha lagu haysto. Fanaankani ayaa ahaa fanaan muddo badan ku sugnaa cariga iyo dalka Turkiga, halkaasi show kusoo qabsaday. Kadib ayuu usoo baxay cariga iyo Hargeysa ayuu ku sugnaa maalmo kooban. Kadib wuxuu usoo socday Addis Ababa, walow la sheegay in ay ku dhageen qolada immigrationka. Fanaanka ayaa ilaa haatan cid u hadasha la sheegin. Dowladda Federaalka Soomaaliya, khaasatan wasaaradda warfaafinta, ayaa ka gaabsatay xarigga loo geystay fanaankaasi. Ilaa hadda dowladda maysan ka hadlin. Waxaa alla ugu baryaynaa fanaanka asigoo nabad qaba inuu soo gaari doono dalkiisa hooyo, caasimadda Muqdisho. Waxaa kaloo halkaani baaq ugu jeedinayaa dowladda Federaalka Soomaaliya, khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, in fanaankaasi xuquuqdiisa dib ay ugu soo celiyaan. Waxaa alla ka baryayaa inuu nabad keeno dhulkiisa hooyo. Videogan inta fiirsatay waa ku mahadsantihiin. Fadlan haddaa aragto share garay, like, comment. mahadsanid.